mulka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa ka soo horjeestay xilka qaadista maanta la sheegay inay ku sameeyeen xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo la hadlay idaacaddan kulmiye ayaa waxa uu ka soo horjeestay xilka qaadista la sheegay in maanta xildhibaano ka tirsan galmudug ay ku sameeyeen kadib markii ay kulan ku yeesheen magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Sidoo kale madaxweyne Xaaf ayaa waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay xilka qaadista isagoo sheegay in xildhibaano yar oo ku shiray Cadaado aysan xilka ka qaadi karin. wuxuuna tibaaxay in xildhibaanada Cadaado jooga ay gaarayaan ilaa 9 xildhibaan kuwaasina aysan xilka ka qaadi karin. arrintaas aniga xildhibaano iga qaaday ma jiraan, xildhibaano joogana lama arko. 9 xildhibaan oo shan ay tahay reer Cadaado qaylaya doctahay nimanka sidoo wada ahaa iyo 3-4 kale weeye wax meesha joogana lama arko. iyo gudoomiye xilka laga qaaday markii gudoomiye xilka laga qaaday iyo 9-7 xildhibaan hadday wax ka qaadi karaan carradaba lama joogin. ahasina wax iska fasaliya waa fawda weeye magaratay. waa gartay Cadaado haddana inaan kala hadlana ma rabo oo يعني واحد ما أعرف يا ليلى هذه رجوع وين فوق فاضي أهلا وسهلا. وايه. دولة الفدرال كاين صوت في بين السنة خلي كعل وضرها شيء حقه. waxay ka helaan barabaanina. codkaas aad maqlaysaan dhageystayaal waa madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo ka soo horjeestay xilka qaadis la sheegay in maanta lagu sameeyay. madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa ku dhawaad 100 xildhibaan mooshin kaga gudbiyeen magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Maxamed Cabduule Tooxow ayaa warkan Dhuusamareeb inagu soo diray. xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa mooshin ka gudbiyay madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabey isla markaasina uu gudbiyay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka galmudug Xareed Cali Xareed. tirada xildhibaanada mooshinka ka gudbiyay madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa waxay gaarayaan 97 mudane sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka galmudug Xareed Cali Xareed. maanta ay taariikhdu tahay 15 bishii 9 2018 waxaan ka gudoomay xildhibaano tiradooda gaarayso 97 qof. waxaan ka gudoomay codka kalsooni kala noqoshada mooshinka ah kaasoo ku wajahan madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi. sidaan halkan ku cad eedeymahaas ay u soo jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka oo xambaarsan ku takrifal dastuurka iyo xeer hoosaadka intaba. waxaan u sheegaynaa in uu maaragtay iska difaaco baarlamaankana markaan eegnay qodobadan ku salaysan lagu soo eedeeyay sharciyadoodana ka guddoon ahaan iyo guddiga joogtada intaba waxaan isla garanay inay sharciyadiisa sax tahay. sidaas awgeedna uu ku yahay sharci mooshinkaas lagana doonayo inuu madaxweyne ku-xigeenka iska difaaco. insha allahu tacaala waxaan idiin soo sheegi doonaa koley kalfadhiga beritoole inay doodiisana ay bilaabato insha allahu tacaala. mooshinkaasna waana qabanay waana sax saacadaha soo soconaa. dhawaan ayaa la filayaa in dood adag ayaa ka yeeshaan xildhibaanada baarlamaanka galmudug mooshinka laga keenay madaxweyne ku-xigeenka galmudug maalmo